iyo leadership maanta waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed musaaq jaamac jooga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Galkacyo waxaan walaalayaal caawa isla fiirin doonaa haddii alla idmo liifgood waxa ay tahay iyo fursadda ku jirta ee walaalaha Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan dhaqaalaha uga samayn karaan haddii alla idmo shirkadda liifgood haddaan qeexitaan ku samayno liifgood waa shirkad Maraykan ah oo ku taala dalka Maraykanka sida halka uga jeedaan taasoo uu yahay ujeedkeeda caafimaadka iyo maxaan ku yiraahdaa inay maartay xoogga saarto badqabka maxaan ku yiraahdaa bulshada sababta waxay soo saaraan company-ga product ayuu soo saaraa sidaa daraadeed ujeedkooda koowaad waxa weeyaan waa wellness weeyaan oo ah badqabka bulshada marka shirkaddan waa shirkad direct sales ah taasoo macnaheedu uu yahay shirkaddan iyo adiga cid u dhaxaysa malahan oo si toos ah ayaa maartay waxa weeyaan ula macaamilaysaa oo hadaa maanta dalacdina product sidoo kale si toos ah ayaa uga dalbanaysaa productkaas oo ma jirto cid maartay waxa weeyaan u dhaxaysa adiga company-ga sidaa daraadeed company-ga waxa weeyaan waa direct sales company weeyaan shirkaddan marka mission-keeda ama ujeedkeeda waxa weeyaan sida alaabta hore kusoo arkayba aan kusoo aragnayba get health in bulshada ay hesho caafimaad and stay healthy sidoo kale bulshada inay ahaato bulsho maxaan ku yiraahdaa bad qabta without having to spend a fortune to do it yani iyadoo markaas wax dhaqaale oo badan qofku uga baxaynin labadaas qodob inuu helo taasoo macnaha ku dugan uu yahay company-ga product uu soo saaro inay yihiin product quality leh qiimo ahaan aad u jaban ninka u jeedaan waa CEO-ga company-ga ama owner-ga company-ga waxa la yiraahdaa Ben Kalaneski wuxuu leeyahay khibrad ah 20 sano halka uga jeedaanba isagoo markaa ninkan soo lahaan jiray company hore oo u soo shaqeeya qaabka hadda company u shaqeeyo oo network marketing-ka oo ninkan ma ahan company ugu horeeyay oo maartay uu soo saaro ama uu sameeyo company ugu horeeyay ma aha 20 sano khibrad ayuu leeyahay company-yal hore uu asaga u soo lahaa saddexdan qof oo kale waxa weeyaan ninka geeska xiga waa director of product development yani waa ninka u qaabilsan xagga productiga iyo horumarintooda u qaabilsan weeye gabadhan sidoo kale waxa weeye waa director of product education yani salaan kale qofku markuu soo gato productigii isticmaalkoodii in maanta ay tala ka siiso kale yani si uu dabada u isticmaali lahaa ama productiga qofku u isticmaali lahaa marka uu soo gatay ninka kale oo nadir yiraahdo waa xagga ka muuqda waa director of network marketing يعني waxa weeyaan waa ninka u qaabilsan xagga network marketing-ka iyo ganacsiga tababarada iyo suuqamka company-ga xagga marketing-ka ayuu qaabilsan yahay saa u jeedaan marka product halka uga jeedaan waxa weeyaan waa product company-ga liifgood uu soo saaro ilaa iyo 16 product hadda soo saara company-gan awal wuxuu soo saaray 15 product kala duwan dhawaan waxa soo saareen mid kale ayaa ku soo dareen marka almost 16 product uu soo saaray yani kala duwan oo items kala duwan oo product uu soo saaray company-ga oo mid kale waxa weeyaan de quality-ga iyo maxaan ku yiraahdaa iyo wax ku oolkaba uga wanaagsan yahay product-ka wali ku guda jirnaa product-kan waxa lagu sameeyay dalka Maraykanka maadaama waxa weeye company aan ku yaala wadanka Maraykanka product-kan waxa lagu sameeyay wadanka Maraykanka waxa approve gareeyay ama ansixiyay qolada loo yaqaan GMP oo ah wala maxaan ku dhahdaa ku taxalluqda ama ku shaqo leh xagga tayadowrka product-ga ama dawooyinka la soo saaro sidoo kale waxa lagu tijaabiyay laababka ama shaybaarada ugu waaweyn dalka Maraykanka iyagoo markaas laga fiiriyay wax kasta oo waxyeelin karaya bilaadanka ama maxaan ku dhahdaa waxyeelada la guud ahaanba laga dhawray saadaradeed waa dareemi karaysaa de company Maraykan ku yaala haddana soo saaray product haddana intaas oo de shaybaar ama hay'adood oo la aqoonsan yahay approve gareysay waa dareemi karaysaa de quality products ay leeyihiin iyo awoodda iyo aqoonsiga company uu haysto halkaas ayaad ka qaadan karaysaa productiga marka isticmaalkoodii iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin ayaa halkan ku aragnaa Women's Health halkan waxa weeye yani caafimaadka ragga agana waxa weeye Women's Health oo ah caafimaadkii ama badqabkii dumarka oo kale
marka skin care jirkii oo kale ay u fiican yihiin maqaarkii xagga maxaan ku idhahdaa immunity-ga ama maxaan ku idhahdaa difaacii oo kale ay maartay kor u qaadayaan waa nutrition-kii oo xagga wax weeye nafaqadii body cleanliness weeye oo jirkii ba nadiifinayaan weight management weeye oo qofkii ama hadduu doonayo inuu miisaan isku daro ama miisaan iska dhimo sidoo kale wuu u isticmaalayaa anti aging weeye oo qofku hadduu tusaale ahaan oo kale qof waxaa jira isagoo da'dii aan gaarin oo kale jirkiisa markaas ay yeeshaan buubuub iyo waxyaalahaas taasna waxa weeyaan qofka maartay wuu u isticmaali karaya sidoo kale waxa weeyaan waa energy-gii oo waa tabartii qofkii tabartuu ka helayaa markuu isticmaalo intaas oo faa'iidaba iyo kuwo kale waxa weeyaan baruurtii shirkadda liifku ay soo saaro way leedahay waaye haddaba marka tusaale ahaan kale haddii uu doonayo qofku inuu dalbado productii sidee ayuu u dalbanaya order as a consumer or a member waxaad u dalbanaysaa adigoo consumer ah oo member ah yacni tusaale ahaan kale member waxa weeye qof company kusoo biiray oo liifku ka mid noqday ama qof asagoo markaas member aan ahayn ama xafiiskii ha tago ama asagoo member aan ahayn productii ha dalbado intaa waa u dalban karaysaa marka consumerska ama dadka memberska ahayn waxay bixiyaan retail low price waxa la yiraahdo oo ah qiimaha qofka memberka aan ahayn ee qofka banaanka ka yimaado qiimaha laga siinayaa maadaama qofka consumer uu yahay weliba qiimahaas oo dalala macaamilayo oo low price ah members pay lower prices qofka markuu xubin noqdo oo company uu ku soo biiro oo luufkiisu xuban ka tirsan uu noqdo waxa weeyaan wuxuu bixinayaa lacag aad u jaban ayuu maartay bixinayaa oo dawadii ku helaya ama productiga markaa uu dalbaday leave good member marka qofka leave good members ka noqonaya ama xubinta ka noqonaya boqolkiiba 75 ayuu safe gareeyay yacni marka loo eego kambaniyada kale productigooda marka loo eego 75% ayuu safe gareeyay sababtuna waxa weeye way ka jaban tahay productiga leave good productyada kale ee kambaniyada kale ay soo saaraan halka marka waxa la sameeyaa isbarbardhig baa la sameeyaa ama comparison oo ah productigii saddexan product baa la soo qaaday tan leaf good ayaa iskale u jeedaan waa saliidda loo yaqaano CBD oil marka qofka memberka waxa laga siinayaa $18 kuwa kalena waa u jeedaa price-ka iyo qiimaha ku qoran difference-ga waa aragtaan soo sidaa daraaddeed product maxaa ku darsatay waa raqiis quality-geeduna waa maxay inna caadilnimo tanoo kale sidoo kale ayagana waxa la sameeyaa isbarbardhig baa la sameeyaa waa saddex product oo kala duwan tan leaf good baa iskale labadana company kale ayaa soo saara marka ayagana waa arkaysan qiimaha iyo difference-ka u dhaxeeya yani si u kala maartay qaalisan yihiin waa u jeedaa quality-na waxa ku leh tan ayaa ku leh wali waxa socda isbarbardhigii productigii sidoo kale tan waa arkaysan sawirada si u kala duwan yihiin xagga qiimayaasha wadaagi karaysan waayahay qofku waxa weeye marka sidee ayuu u noqon karayaa qof winka ah shirkadda yani sidee ayaa ugu soo biiri karaysaa company-gan waa uga mid noqonaysaa member uga mid noqonaysaa sidee ayaa company uga mid noqonaysaa waa uga noqonaysaa member waxaa lagu yidhi iska diiwaangeli qofka markaas adiga kugu soo casuumay oo company kugu soo casuumay inaa dadka hadda caawa ku jira marka laga reebo dadka memberska ah dadka cusub qof kasta linkii si buu kusoo gaaray sidaa daraaddeed qofkii waxa weeyaan saaxiibkaaga kusoo gaarsiiyey barnaamijkan oo kula wadaagay linkigiisa ayaa maxaan ku rahdaa iska diiwaangelinaysaa oo aad qaadanaysaa waxaad bixinaysaa 9.9 ama $10 9.95 ama $10 markaan aan raahno taasoo ah markaas lacagta maxaan ku rahdaa lacagta memberka ayaad bixinaysaa ama si sanadla ah ayaad u bixinaysaa labadaba way kuu furan tahay inaad bilow bixisid iyo inaad sanadla u bixisid sidoo kale buy products at wholesale price member price يعني marka company ku soo fiidido kale halka fursada ku jirta waxa weeye qofka asagoo member ah inuu ma aragtay dalban karo product aad u badan oo si jimla u dalban karayo isagoo markaas member oo ka faa'iideysanaya qiimaha jaban waayo waxaan hore u soo aragnay waxaan ila qofka hadduu xubin yahay waxa laga siinayaa maxay qiimo jaban ayaa laga siinayaa productigii marka inuu xubinimada ka faa'iideysto qofku oo productigaasna maxay uu ka ku dalbado qaab jimla ah yani qaab ma aragtay cadad badan inuu ku dalbado deedna markaas uu kasii sameeya lacag oo sii iibiyo uu samayn karaya haddii marka aad jeclaan lahayd inaad ka samayso shirkadda leaf $2,000 ama ka badan aad jeclaan lahayd inaad ka samaysid qaybaha dambe ama aad xiisaynaysid qaybaha dambe maxaan ku leedahay bandhigeenna caawo ama presentationkeena ayaan ku arki doonaa haddii alla idmo adigu ila joog leaf good affiliates
يعني leave the affiliate waxa weeyaan qofka doonaya company intuu ku soo biiray inuu markaas waxa weeyaan uu xayeysiin u sameeyo ama dad uu ku soo xiro shirkaddan waxay ku siinaysaa markaas fursad ayay ku siinaysaa taasoo markaa aad ku samayn karaysid dhaqaale aad ku samaynaysid iyadoo markaas waxa weeye dhaqaalaha kugu siinaysaa yani qaab ugu xiisaha badan ama inama aan caadi ahayn oo competition plankan waxa weeye waa lacagihii maxaan ku dhahaa asbuuclihii iyo bilihii iyo maxaan ku dhahaa waxaas oo dhan waan arki doonaa insha allah gadaal baan ka arki doonaa haddii alla idmo sidee marka qofku u noqonaya affiliate member affiliate member waxa weeye qofkii inuu company ku soo biiro markaas uu team dhisto oo marketing uu sameeyo ama suuqgeyn uu sameeyo waxaad ka diiwaangelinaysaa asna hore usoo arno kale maxay sponsors link qofka markaa linki adiga kula wadaagay baad ka diiwaangelinaysaa pay one time 49.95 waxaad hal mar bixinaysaa $40 oo company-ga haddaa mar iska diiwaangelisid diiwaangelin kale ma jirto waa one time waa hal mar weeyaan marka qofku wuxuu samayn karayaa inuu waxa weeye $40 ugu soo biiro ama sanadla uu bixiyo oo 139 ama 140 uu bixiyo sidoo kale marka haddii qofku $40 uu qaatay oo optionkan uu qaatay in bil kasta uu iska bixiyo $10 sidaas ayaad ku noqonaysaa affiliate member ama xubin markaas company-ga ku jirta oo marketing ama suuqgeyn samaysaa waayahay maxaan helayaa marka 49.5 ama $40 aan bixiyo maxaan helayaa waxaad awood u yeelanaysaa inaad ka mid noqotid dadkii xubnaha ka ahaa company-ga oo company-gii ayaad waxaad ka ahaanaysaa dadkii yani membership-ka ka ahaa waad ku soo biiraysaa oo club-kaasaad ka mid noqonaysaa yani team-kaas ayaad ka mid noqonaysaa memberska digital marketing products waxa weeye sidoo kalena maxaan ku idhahdaa kugu diyaarsan ayagana waxa weeyaan waad helaysaa sidoo kale maxaan ku idhahdaa inaad ka qayb qaadatid competition planka ama maxaan ku idhahdaa habka lacag bixinta company-gan inaad markaas waxa weeye qayb ka noqotid oo lacagihii bilihii iyo maxaan ku idhahdaa weekly intiiba lagu siiyo ayaa waxa weeye fursad u helaysaa maadaama aad bixisay lacagta $40 company-gana xubin aad ka noqotay marka saddexdan qodobba ayaa marka $40 bixisid kuu furmaya oo maxaan ku idhahdaa fursad u helaysaa insha allah in aad noqotid member ama xubin ka tirsan company-gii in maxaan ku idhahdaa productigii aad heshid in maxaan ku idhahdaa ka qayb noqotid dadkii lacagaha qaadanayay maadaama aad noqotay xubin aad noqotay lacagta aad bixisay hadda marka waxaan isla eegaynaa competition plankii iyo qaabka markaas waxa weeyaan lacagaha marka company-gu uu bixiyo iyo qaybahooda insha allah ayaan isla arki doonaa halkan hadda sida uga jeedaan waa sawirkan tusaale ahaan waa adiga ama aniga kaba soo qaad qofka markuu isdiiwaan geliyey wuxuu keenay dadka ka hooseeya u jeedaan buu keenay dadkaas marka wuxuu lacag ka samayn doonaa waa arki doonaa waa lacagaha isbuuclahaaya waa arki doonaayeen ilaa iyo 10 leefal ilaa 10 qof oo maartay hoose oo dadkan isaga uu keenay dadka ay sii keeneen ayuu ka samayn doonaa lacagaha isbuuclaha laata dhinacan waxay ina leedahay definite white oo macnuu yahay qofku wuxuu iska talaali karayaa inta markaa dad u baahan yahay ama 100 iska talaal ama 1000 iska talaal ama 200 iska talaal yani ma xadidna dadka adigu iska talaali karaysid tiro go'an ma lahan halkan waxa weeye ayuu salkan ugu tusaya waxa la yiraahdo matrix 2/15 oo arki doono haddii aan leedno ayagana wuxuu kugu ogolaanayaa 15 leefal inaad lacagta ka samaysid billaha ee loo yaqaano matrix waxaa marka iyagoo sharaxan oo faahfaahsan ayaan isla arki doonaa insha allah don't worry waaya sawirkii marka waa kan soo si fiican u sharaxan marka 7 qaab ayaad lacag uga samayn karaysaa company-ga leafwood 7 qaab ayaad lacag uga samayn karaysaa qaab waxa weeye weekly fast start baa la yiraahdaa oo waa lacagaha isbuucii soo dhaca oo company-ga laga sameeyo midna waxaa la yiraahdaa retail commissions waa lacagaha productiga la xiriira tafaariiqda midna waxaa la yiraahdaa matching bonus waa lacagaha bidlaha oo faa'iido wadaagga aad la sameynaysid teamkaaga midna waxaa la yiraahdaa influencer bonuses oo productiga qof uu maartay si cadad badan ama jumla ahaan u iibiyo midna waxaa la yiraahdaa diamond bonus pool midna waxaa la yiraahdaa diamond crown bonus pool midna waxaa la yiraahdaa matrix commissions todobadaas qaab ayaa company-ga leafwood kula diyaar yahay haddaad caabo xubin ka noqotid xubin aad ka noqotid todobadaas ayaa ku hortaala todobadaas fursadood aad lacag uga samayn karaysaa
kambaniga leafwood mid kastana waa dul istaagaynaa sida looga helayo iyo maaragtay qaabku u dhisan yahay waxaan ka hormarinaynaa marka kii usbuuclaha ahaa kii usbuuclaha ahaa sawirkan ayaa si kooban inoogu sheegi doona tusaale ahaan qofkaan oo kale kaba soo qaad waa qof caawa isdiiwaan geliyey isla berri wuxuu keensaday afartaa qof ayuu iska tallaalay afartaa qof ayuu si toos isaga tallaalay qof kasta oo linkigaaga ama adigu si toos ah isaga tallaashay waxaad ka helaysaa $25 usbuuca qofkaas uu isdiiwaan geliyey usbuuca ku xiga maalinka khamiista habeenkii jimcuhu soo gelayo waxaad ka helaysaa $25 qof kasta oo adiga kaa tallaalan oo linkigaaga qaatay marka halkaan sawirka hadda uga jeedaan afartan qofka asagaa keenay oo toos ayay uga tallaalan yihiin marka mid kasta muxuu ka sameeyey $25 buu ka sameeyey kan 25 buu ka helay kana 25 buu ka helay kana 25 buu ka helay kana 25 $100 buu ka helay okay marka calaa qof hal mar baad ka helaysaa waayo qofka hal mar buu isdiiwaan gelinayaa soo ma qofka marka isbuucan ka heshid macnaheedu ma isbuuca dambe in 25 aad ka helaysid waxaad lacag ka heli kartaa oo kaliya qofkan qofka uu keeno ayaa lacag ka heli karaysaa laakiin asagii waa one time waa hal mar weeyaan okay halkan ayay ku qoran tahay the first starter bonus is a one-time 25 bonus from all new directors that join you and pay the 49.95 ama $50 يعني lacagta isbuuclaha ah waa hal mar ayaad waxaad ka helaysaa qofkii tooska kaaga tallaalnaa oo bixiyey lacagta $50 ahayd yani kambaniga kusoo biiray weeyaan waay halkaan marka waxay dhageyna siiya meesha waxa weeyaan waxaan ku idhahdaa muhiimsan waa qaybtan weeyaan waan isla doonayno inaan isla fahamno caawa insha allah kambanigan marka adigu unranked aad tahay tusaale ahaan unranked waxaa laga wadaa markaa isdiiwaan gelisay hal qof oo keliya keenta hal qofna darajo laguma gaaro darajada laba qof baa lagu gaaraa waa arki doonaa daalada qof markaad keentay qofkii waxaad ka helaysaa $25 halkii qof aad keentay adigoo darajo gaarinba darajo xataa lagula sugmaayo adigu markaa isdiiwaan gelisay hal qof baaba la timid qofkaagii waa $25 lagaa siinaya qofkaagii ayaa $25 lagaa siinayaa markuu isdiiwaan geliyo maadaama qofka adigu marka aad keentay maxaa weeye waa level 1 in adiga keenayo qofka adigu kaa tallaalan yahay waana unranked baa tahay wax darajaa ma haysatid maadaama hal qof oo keliya aad keentay waaya marka qofkii adigu aad keentay haddii uu qof sii keeno adigoo bronsa darajada koowaad baa gaartay markaas darajada koowaad marka aad gaartay haddii qofkii aad keentay uu qof labaad keeno waxaad ka helaysaa $5 oo u dhiganta 50% yani qofkii muxuu isku diiwaan geliyey $50 buu isku diiwaan geliyey $50 boqolkiiba 10 waa intee waa $5 marka bronsa markaad tahay waxaa kuu furan qofkii aad keentay haddii uu qof keeno inaad maxay ka helaysid boqolkiiba 10 ama $5 inaad ka helaysid waa markaa tahay bronsaha ayaa optionkaas kuu furmaya markii aad gaartid maxaa darajada labaad ee loo yaqaano silverkan kambanigu wuxuu ku ogol yahay inaad lacag ka samaysid ilaa iyo levelkaaga afraad tusaale marka qofkii kaa tallaalan markasta asaga waa $25 qofka kaa tallaalan qofka uu keenayna markasta waa boqolkiiba 10 oo qofkaa keentay qofka uu sii keenay waa level 2-gaagi soo maaha yani waa qofkaaga labaad silverka marka waxaa kuu raacsan level 3 iyo level 4 level 3gii waa boqolkiiba 5 oo u dhigantaa 2.5 level 4ka sidoo kale waa boqolkiiba 5 oo u dhigantaa 2.5 marka qofku markuu silverka yahay intee level baa lacag laga siinayaa waxaa laga siinayaa ilaa 4 level saa ujeedaan level 4 buu ku egyahay silverkan oo ah darajada labaad level 4 ayuu ku egyahay qofku markuu bronsaha yahayna labada levelkaas loo ogoliyaa koowaad labada level baa loo ogoliyaa qofka uu keenay iyo qofka uu sii keenay labada level baa loo ogoliyaa silverkana waxaa loo ogoliyaa 4 level
gooldi markaa gaadhin waa darajada saddexaad ee kambaniga Leafwood qaabka lagu gaaro waa isla arki doonaa insha Allah waxaad ka samaynaysaa ilaa iyo 6 level ayaa lagu ogoliyay marka saa u jeedaan levelka lixaad buu ku joogaa gooldiga waxay ku joogaa levelka lixaad yacni qofkaagii lixaad ee hoos ilaa laga bilaabo qofkaagii koobaad ilaa qofkaagii lixaad baa waxay ka samaynaysaa maxay commission isbuuclaha ka samaynaysaa commission isbuuclaha ayaa ka samaynaysaa marka lacagahan u jeedaan waxa weeye yacni waa calaa qof waa qof kasta weeyaan halkii qof marka gooldi markaa tahay ilaa levelka lixaad baa lagu ogolyahay inaad ka samaysid lacagaha isbuuclaha ah lacagihiin waa kuwaasa halkaa kasoo bilow level 1 waa 25 hadduu kaa talaalan yahay waxa weeyaan levelka labaad waa $5 levelka maxaan ku xiga waa 2.5 oo ah boqolkiiba 5 level 4 ka waa 2.5 oo boqolkiiba 5 level 5 ka waa kana sidoo kale waa maxay waa 2% yacni waxaani waa lacagtii waxaani waa levelskii marka gooliga maxaa lagu ogol yahay level 6 baa lagu ogol yahay platinumka maxaa lagu ogol yahay ilaa iyo levelka 8aad baa lagu ogol yahay wuxuu ku yahay level 8 marka level 1 ilaa level 8 intaas ku darso intaasaad ka helaysaa isbuucii haddii aad leedahay marka tiimkaaga uu shaqeeyo diamondka waxaad ka helaysaa ilaa iyo levelka 10aad ilaa iyo levelka 10aad ayaad ka helaysaa marka tan maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay darajada markaas adigu aad joogtid waa aniga la maxay bronzaha inuu ka helayo labadaas level silverka uu ka helayo 4 level qofka goldiga uu ka helayo tiimkiisa 6 level waxaan ka wada 4 level sorry platinumka inuu ka helayo 8 level diamondka inuu ka helayo 10 level halkaa marka falaartan waxay aad tusaysaa maadaama adiga hadda qofkan aad tahay in aad iska tilaali karaysid dad inta u baahato yacni cadad ma leh kun qof baa iska tilaali karaysaa waxaan ka wadaa kun qof ayaa ninkaaga siin karaysaa oo qaadan karaysa marka falaartan waa infinite saa ujeedaa oo ma lahan meel ay ku dhammaato halkaa marka waxa weeye waxaan fiirinaa waxa loo yaqaano matrixka oo ah qaabka kale oo kabariga lacagta looga sameeyo lacagta marka iyada waa bille oo waxa la yiraahdaa matrix baa la yiraahdaa marka matrix waxa weeyaan qof kasta oo adigu ama keen ama tiimkaagu ha keeno ama kabarigu ha ku hoos dhigo ha ku siiyo waxaad ka helaysaa 25 senti baad ka helaysaa lacagta marka matrix loo yaqaano waa lacagta billaha ah waa lacagta ugu yar ee kabaniga Leafwood laga sameeyo sidaa daraadeed tiimkaaga guud ahaan haddaad boqol qof haysatid oo tiim ah yani 100 qof haddaad haysatid oo 100kaas qof ama adigu ha qor ama maxaan ku yiraahdaa tiimkaaga ha qoro ama kabanigu ha hoos dhigo qof kasta oo ku hoos yaala 25 senti ayaad ka helaysaa markaan ka hadlayno lacagta matrixka waana billi lacagta halkan marka maxay nagu qoran saa u jeedaan halkan ayay nagu qoran tahay matrix commissions waa maxay waa 25 senti aad ka helaysid qof kasta taas oo kabaniga xubin ka ah bixiyana lacagta bisha ayaa lacagtan kaga soo dhacaysa marka waa isla arki doonaa isagoo faahfaahsan insha Allah okay matrixka marka waa kana kabaniga Leafwood waxyaalaha cajiib ku yahay waxa weeyaan kabaniga Leafwood wuxuu ku leeyahay markaad kabaniga ku soo biirtid oo lacagta aad bixisid ama sanadla ugu soo biir ama maxaan ku yiraahdaa $50 ugu soo biir oo bishii $10 iska bixi ama sanadla ugu soo biir laba option baa kuu furan inaad noqotid qof team dhisanaya oo marketing iyo suuqgeyn sameynaya in aad taas aad noqon passwordkaaga userkaaga markii akoonka lagu sameeyo meel dhigatid kambanigana wuxuu ku leeyahay haddaad saa samaysid qofkaas waxaan u ogolahay 12 level inaan dad يعني 12 level isagoo cilmi aan keenin inaan dad ka siiyo ama dad maxaan ku radaa ugu guro halkaas tan waxaan ka wadaa adiga marka isdiiwaan gelisay cidba maada keenin hal qofna maada keenin suuqgeena maada samayn laakiin liderka adiga ka sareeyay ama qofka adiga marka linkiisa ahaysatay ayaa waxa kaaga imaan karaya dadkaas marka kabanigu wuxuu ku leeyahay waxaan kuu baneeyay 12 god baan kuu baneeyay 12 ka godna god kasta tira gaar ayuu ku guudsanaa
labiyo tobankaa good marka ay kuu buuxsamaan oo tiradii laga rabay ay buuxsanto ayaad waxaad helaysaa lacagta halkan ku qoran ee $2,047.5 lacagtaas ayaa helaysaa waa adigoo dee ruuxna aan keenin qofna aan qorin weeyaan waa adigoo aan qofna qorin alright marka godka koowaad oo kale wuxuu ku buuxsamaa 2 qof oo kale ku buuxsamaa ama leefka koowaad leefka labaad wuxuu ku buuxsamaa 4 qof kan ku xiga wuxuu ku buuxsamaa 8 ilaa iyo laga gaarayo 12 leefal 12kaas leefal markii adiga ay ku buuxsanto ayaa lacagtaada ku qoran company ka samaynaysa adigoo aan qofna keenin su'aasha marka waxa weeye 12ka leefal ma isbuuc ay ugu buuxsamaysaa ma sanad bay ugu buuxsamaysaa ma bil bay ugu buuxsamaysaa inta ay kugu buuxsamayso waqti ku aan malahan waxa laga yaabaa 6 bilood gudahood in 12ka leefal ku buuxsamaan waxa dhici karta 3 bilood ama 2 biloodba in aad qofna company ku hoos dhigin oo waxay ku xiran tahay barnaamijka wuxuu ku xiran yahay tiimka adiga ka saxeeyo oo aad ka talaalan tahay iyo shaqadiisa ay ku xiran tahay maadaama adigu aad waxba qabanaynin maadaama marka adigu sugu aad tahay oo wax sugaysid oo company martiba aad ka noqoto aad tirma shaqaysanayo waa inaad dulqaadkeeda yeelataa marka company marka wuxuu cajiib ku yahay lacagtan inta aad sameynayso kula sugu mahayo oo ma oranayo $2,047 qofkaan ma gaarin lacagta billaha ma qaadanayo hal qof hadduu kugu jiro oo xilliga maxaan ku radaa bishii u dhamaato oo maxaan ku radaa kriteeriyada ama magaranaysa bishii qofka sidoo ku qaadanay markaad gaadid waqti lagu talagalay markaad gaartid halka qof baad ka qaadanaysaa shalaati ka jirto 100 qof haddii kugu jirto waad ka qaadanaysaa yani company kula sugu maayo 12kan leefal intay buuxsamayaan wixii marka ay haysatid ayuu ku siinayaa haddaba marka qofku uu shaqaysto oo bronze ama darajada koowaad uu gaaro ama darajada maxaan ku radaa labaad ee silverka waxaa 12 leefal hore lagu darayaa leefal 13 ayaa lagu darayaa taas oo marka uu ka samayn karayo markay leefaladaas buuxsamaan $4,095 goldiga iyo platinumka markuu qofku gaaro leefalka 14 ayaa loo furayaa taas oo ka samayn karayo $8,191 diamondka qofku markuu gaaro 15 leefal ayaa loo furayaa 15ka leefal markii loo furo oo dadkii loogu talagalay ay soo galaan tiimka isaga uu qoray ee tiimka bari uu sameeyay maadaama dadkaan darajada gaaray ay sameeyaan maxay suuqgeyn bay sameeyeen oo marketing bay sameeyeen dad bay qoreen marka tiimkooda tiim uu qoray ayagoo tiim bay qoreen dadkii way buuxiyeen company waa la buuxiyay marka maxay sameynayaan lacagta halka ku qoran ayay sameynayaan midna ogow lacagta hadda aan ka hadlayo waa lacagta ugu jirta laga sameeyo company-ga yani lacagta billaha oo ugu jirta oo company laga sameeyo oo loo yaqaan matrix hadda aan sharaxayno waa lacagta ugu yar weeyaan marka adiga caawa haddaad doorato optionkan ah inaad sugo noqotidna waxaa lagaa rabaa dulqaadkeedii waa lagaa rabaa iyo samirkeedii ayaa lagaa rabaa haddaad rabtid inaad marketing samayso oo darajooyinkan aad gaartidna waxaa lagaa rabaa maxay go-aankeedii iyo kartideeda baa lagaa rabaa haddaba lacagta ugu badan ee company laga sameeyo waxaa loo yaqaanaa margin bonds middan waxaad ka samaynaysaa waa faa'iido wadaagga tiimkaaga lacagta billaha ah ee tiimkaaga aad la wadaagaysid iyadoo markaas ay ku xiran tahay darajadaada ayaa maxay loo yaqaanaa margin bonds marka 4 qof baa iga talaalan kasoo qaad aniga waa kan 4 ruux baan keenay 4 ruux tiimkan lacagta matrixka ay ka sameeyaan tiimkan hoose lacagta ay ka sameeyaan 50% baa laga siinaya 50% ayaa laga siinaya oo sawir kale oo sawir danbaan ku arki doonaa insha Allah soo si fiican u faahfaahsan qofka marka lacagta uu tiimkan ka sameeyay oo matrixka ah bishii 50 baa laga siinaya 100% baa laga siinaya maadaama aniga uu uga talaalan yahay oo linkeyga uu qaatay kana sidoo kale 50% baa laga siinaya wixii tiimkan uu ka helay matrixka afartu waa saas weeyaan marka margin bonus waa maxay waa lacagta billaha ah taasoo 50% aad ka helaysid dadka toos kaaga talaalan wixii ay ka sameeyeen matrixka waa ka marka tusaalihii oo faahfaahsan alright 4 qof baa ka talaalan 4 qofkaan wuxuu sameeyay $1,000 ayuu sameeyay oo tiimkiisa ka sameeyay lacagta matrixka uu ka sameeyay tiimkiisa waa $1,000 $1,000 qofkaan hadii laga siiyo waa imisa $500 baad ka helaysaa inaba caadi $500 baad ka helaysaa marka qofkaan $1,000 uu qaatay isaga laga jari maayo isaga $1,000 uu qaadanaya laakiin company ayaa adigu ku siinaya
okay ruuxan labaad ama qofkan kale oo aniga iga talaalan tiimkiisa wuxuu ka sameeyey matrixka $500 $500 boqolkiiba 50 haddii laga siiyo waa imisa waa $250 afar qof oo kaliya weeyaa lacagtaas kana muxuu ka sameeyey $100 buu ka sameeyey matrixka tiimkiisa boqolkiiba 50 baa laga siiyey waa imisa waa $50 kana muxuu sameeyey $200 buu sameeyey $200 boqolkiiba waa imisa waa $100 midna ogow inta aragtid ayaa maxay dad iska talaali karaysaa oo halkan waa maxay waa infinite weeyaan inta aragtid baa iska talaali karaysaa dadka dunida oo dhan hadda aragtid waa iska talaali karaysaa waaya halkan marka waxaan fiirinaynaa generationkii ama teamkaaga sidee faa'iido ula samaynaysaa sida faa'iido ula samaynaysaa generation koowaad oo ah teamka markaas generationka koowaad ama faracaaga koowaad ama dadka markaas firkaaga koowaad ah waxa weeyaan dadka toos kaaga talaalan waa taa hadda arkaynay oo boqolkiiba 50 ka samaynaysaa silverka boqolkiiba 10 baa ka samaynaysaa goldiga boqolkiiba 5 platinum boqolkiiba 5 diamondka boqolkiiba 3 generationka labaad oo generationkaas sii keeneen waxa weeye silverka boqolkiiba 10 goldiga boqolkiiba 5 platinum boqolkiiba 5 diamond boqolkiiba 3 يعني generation maxaa weeye generation waxa weeyaan waa dad weeyaan ma aha saddex qof iyo laba qof midna ma aha generation iska waa dareemi karaysaa maxaa weeye generation waa bulsho dhan weeyaan marka team waxa laga yaabaa boqolkiiba 10 kan silverka ah inaad 100 qof ka samaysid oo teamkaaga ah third generationka ama generationka saddexaad oo ah generation sii keenana 5% goldiga platinumka maxay 5% diamondkana 3% generationka afraad ama faracaaga afraad 5% platinum diamondka 3% marka diamondka markasta waa maxay all waa 3% weeyaan sida waxaad fahmi doontaan insha Allah markii aad kabaniga xubin aad ka noqotaan oo tusoo taabsi ay noqoto ayaad arki doontaan marka walaalaha cusub caawa kaliya kuma fahmi karaysaan barnaamijka laakiin kullu inaad ka qaadataan yani inaad sawir guud ka qaadataan oo aad inta ka fahantaan baahan si deeply ama si hoose ma fahmi karaysaan marka intii fahantina waa ma sha Allah marka tan maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay maxay darajada markaas aad joogtid ay ku xiran tahay sida halkaan sheegayo ويا little commission oo ah qaab kamid ah qaabka hadda soo arkay dawlad qaab mid kamid ah waxa weeye ayadana maxaa sameynaysaa 10 level ayaa ka sameyn karaysaa oo teamkaaga waxa ka sameyn karaysaa waxa ka sameyn karaysaa lacagaha isbuuclaha tanna waa productiga marka tan waa maxay waa productiga sawirka waa iska fahmaysaan waa kii hadda soo arkayno kale oo maxaa weeye tusaale ahaan waxa inagu qoran little commission is 50% bonus from the difference between the member price and retail price. Tusaale ahaan waxa weeyaan kaba soo qaad shay ayaa wuxuu joogaa ka soo qaad shay ayaa qiimihiisu wuxuu joogaa $10 product ayaa $10 joogta qiimaha retail waa maxay retail waa qofka company aqoonka ahayn ee banaanka intuu ka soo galay yiri anigu product kaliya ayaan rabaa ma rabo inaan xubin ka noqdo kabariga liifku retail marka waa kaas weeyaan qiimaha laga siinayo qofka memberkana waxa laga siinaya ka soo qaad $5 baa laga siinaya marka difference maxaa weeye waa labadan oo la kala jaray marka waxa shan ka jiray maxaa weeye waxa soo haraysa maxay shan baa soo haraysa ma shantaas ayaa boqolkiiba 50 ka qaadanaysa shan markii loo qeybsho maxay waa 2.5 yani macnaha meesha ku jira waxa weeye retail price-ka oo ah qiimaha qofka kabaniga xubinta aan ka ahayn laga siinayo oo laga jaray qofka xubinta ka ah kabaniga qiimaha laga siinayo kala jartooda ayaa boqolkiiba 50 ka qaadanaysa maxay dadka toos adiga kaaga talaalan ee directly kuwa dadka directly kuwa ayaad ka qaadanaysaa sida hadda sawirka uu muujinayo marka qofkan waa maxay direct maadaama uu yahay hadii uu barrooti iibsado boqolkiiba 50 baa laga siinaya kan maadaama direct aniga uu yahay oo linkiga toos u haysto hadii uu barrooti iibsado boqolkiiba 50 kana sidoo kale marka waa maxay unranked baa tahay tusaale ahaan hal qof baad keentay qofkii aad keentay ayaa wuxuu gatay product oo linkiga haystay
boqolkiiba konton baad ka helaysaa oo u dhiganta maxay $25 haddaa bronso tahay bronso markaa tahay level 2gaaga ama qofkaas qofka uu keenay hadduu product sii gato boqolkiiba 10 baa lagaa siinaya silver markaa tahay level 3gaaga waxa lagaa siinaya maxay hadduu product gato boqolkiiba 5 baa lagaa siinaya waa tii hadda aan soo arkayna suuqlaheeda kala weeyaan kaliya waxay uga duwan tahay waa tanna waa product taasna waxay ahayd affiliate bay ahayd oo macnaha dad iyo kanistiis bay ahayd goldig oo kale ilaa levelka 6aad ayaa ka samaynaysaa maxay tiimkaaga waxay product iibsadaan ayaa ka samaynaysaa lacagaha isbuuclaha balatinia markaa tahay ilaa levelkaaga 8aad ayaa ka samaynaysaa lacagaha isbuuclaha ee productiga iibka diamondka waa ilaa iyo levelka 10aad sidaan soo aragnay flartana waxa inoo sheegaysaa 10 levels deep oo ah ilaa iyo levelka 10aad ee tiimkaagaas wixii product u gatay ayaa maxay ka samaynaysaa commission kala duwan oo u jeedaa ku qoran ay ka samaynayaan halka marka waxa weeye tan waa mid kale oo kamid ah todobadii waxaan ku raabaa qaab ee lacagta loo sameeyay tan marka waa influencer bonus weeyaan oo waa maxay waa si tibla qofku inuu marad ku sameeyo kale yaani tan waxa ku xiran tahay sales yaani iibka ku xiran tahay hadii marka barodti aad sameeysid iibkeedu gaarayo lacagtaas soo xariistay 2500 salaam kale hadaa soo xariistay inta barodti iibisid lacagtaas soo xarooto marka ugu horeeya boqolka tun baa haysatay waxa lagu darayaa 10 area taasoo ah boqolkiiba 60 alaab 5,000 hadaad soo xariisid lacagtood ama $5,000 hadaad soo xariisid oo iib ah boqolkiiba 50 hore waa haysatay boqolkiiba 20 baad lagu darayaa oo additional commission ah oo dheeri ah boqolkiiba 70 baa saa ku haysataa haddii iibka ama soo xariistay uu $10,000 uu gaaro 30 baa lagu darayaa area 50kaagii 80 baa saa ku haysataa 25 haddii uu gaaro 40 baa lagu darayaa commission oo dheeri ah 90 boqolkiiba saas ku haysataa iibkaas konton haddii aad soo xariisid boqolkiiba 50 ayaa lagu darayaa 50na hore u haysatay oo ah boqolkiiba 100 marka boqolkiiba 100 macnaheedu maxaa weeye hadda xisaabta aan kala jaraynay يعني فرق اللي وده حاجة قفل ريتيرك على عقد اللي جسيه iyo memberka lacagta laga siiyay salaahada waxaan kala jirnay 10 iyo 5 baa kala jirnay 5 baa soo haday marka boqolkiiba 50 markaan dhahaynay 5 lagu qaybin laakiin hadda difference ee soo baxo yani qofka waxa laga jiray ma taas lagu siiyay taas boqolkiiba 100 ku helaya marka oo maxaa ka wada tusaale waxaan ka wada haddii retailku uu ahaa 20 hadduu ahaa retail maxaa weeye waa barortii qofka laga siiyo qiimaha laga siiyo qofka aan memberka ahayn weeyaan waa qiimaha laga siiyo barortii qofka aan memberka ahayn aan xubinta ahayn oo laga jaray ka soo qaad $10 ayaa laga siiyo qofka memberka maadaama qofka xubinka banka yahay waa la saaciray oo waxa laga siiyo $10 qofka 20 baa laga siiyo sababtu maxay tahay xubin ma ahan marka farqiga soo baxay muxuu yahay farqiga soo baxay waa 10 soo ma ahan 10 ka marka asaga waxba laga jarmaayo 10 kaas sidiisa lagu siiyay marka boqolkiiba boqolku waa saas weeyaan waaya okay aspecta marka taasna waxay ahayd influencer bonus-ka ayay ahayd influencer bonus-ka ayay ahayd waaya tan kale waxa la yiraahdaa diamond bonus pool baa la yiraahdaa oo waxa weeyaan qofku markuu darajada diamond-ka soo taabto oo ah darajada shanaad ee company leaf food boqolkiiba 2 ayaa waxa laga siinayaa iibka guud ee ka soo xarooda lacagaha billaha ah iibka maxaa ku rahaa product-yada ayaa maxay waxa loo qaybinayaa yani si toos ah oo isleeg ayaa maartay lacagtaas oo dhan buu ka sameeyaa maxay boqolkiiba 2 laga siinayaa yani guud ahaan lacagta company bisha uu soo saaray oo ka sameeyay product-iga iyo membership-iska lacagaha dadka billaha ay soo xareeyeen iyo waxa product-iga laga keenay guud ahaan company-ga waxa soo galay hadduu 10 milyan soo gashay iyo 20 milyan soo gashay boqolkiiba 2 laga siinayaa adiga sababtuna waxa weeyaan darajada diamond ayaa soo taabatay marka darajada soo taabatay ayaa boqolkiiba 2 laga siinayaa bishaas wuxuu company soo xareeyo waaya crown diamond bonus pool baa jira qofka markuu darajada crown-ka uu gaaro boqolkiiba 0.5 ayaa maxay ayaa waxa laga siinayaa sales-ka oo dhan company-ga uu soo xareeyo iibka company-ga uu soo xareeyo product-iga
iyo maxaan ku yiraahdaa lacagaha billaha ah yani kambaniga bishii wixii dakhli soo gala ayaa maxay percentagekas ayaa laga siinaya marka darajooyinka sida lagu gaaray ayaan isla eegi doonaa darajada koowaad ee kambaniga waxaa loo yaqaanaa bronze ayaa la yiraahdaa waxaa lagu gaaraa qofku laba qof oo kaliya uu keeno markaas ayaa maxay u gaaraya darajada koowaad ee bronzaha silver waa darajada labaad qofku wuxuu ku gaari karayaa dhowr qaab oo kala duwan sida halka inooga muuqata mid waxa weeye 10 qof inuu qofkaas si maxaan ku yiraahdaa toos isaga talaalo teamkiisana uu 20 gaaro ama inuu soo saaro 3 qof oo darajada koobaad jooga ee bronzaha yani 3 qof oo kiiba 2 qof uu haysto teamkiisana uu noqdo 20 qof taa uu ku noqon karayaa darajada saddexaad waa goldiga qofku inuu 30 qof si toos ah linkiisa u siiyo oo toos u isaga talaalo teamkiisana 100 uu gaaro wuu ku noqon karayaa darajada goldiga ama sidoo kale inuu soo saaro 3 qof oo darajada silverka jooga inuu soo saaro teamkiisana uu 100 noqdo ama sidoo kale in maxaan ku raadin teamkiisa uu 100 noqdo 30 ka badanna aysan ka imaan lugihiisa sida ka talaalan 30 qof yani teamka lugihiisa ka talaalan 30 qof inuu ka badnaan lug kasta ayaana wuu ku noqon karayaa tan marka waa darajooyinka kambaniga iyo mid kasta qaabka lagu gaarayay weeyaan platinumka sidoo kale waxa weeye qofku inuu 100 iska talaalo teamkiisa 500 uu gaaro ama inuu 3 qof oo goldiya uu maxaan ku raahdaa iska talaalo ama soo saaro teamkiisa 500 uu noqdo ama maxaan ku raahdaa in teamkiisa 500 uu noqdo lugihiisana aysan ka imaan in ka badan 150 يعني marka lugaha laga ka talaalo asaga la tirinayo lug kamida waa inaysan 150 ka badnaan diamondka waxa weeyaan inuu qofku soo saaro 3 qof oo darajada platinumka ama darajada afraad jooga inuu soo saaro teamkiisa uu noqdo 2500 darajooyinka hadda kulli aan tirinayo kulligood waa haynaa waa la gaaray kulligood waa la soo taabtay marka laga reebo mid dambe hadda arki doonto يعني marka hadlaya teamkeena Soomaalida marka hadlaya teamkeena waliba gaarka is weelaan waan ka hadlayaa la diamond la waxa weeyaan waa soo taabanay la bronze darajada waxa loo yaqaanaa crown diamond marka waxa weeye teamku inuu total ahaan gaaro 50 weeyaan inuu gaaro oo sidoo kale maxay aysan 10 ka badan aysan ka imaanin lugaha ka talaalan qofkaas inay 10 ka badan lug kasta 10 iska badnaan macnaha waa criteria ku noqonaya maqaabkaas ku noqonaya crown diamond inta ku tiim gaaro lugaha ka talaalan ama iska imaan ama lugaha ka talaalan aysan 10 ka badnaan arka waa payment proof weeye yani waa cadaynti lacagihii soo dhacay xala maxay ahayd xala waxay ahayd xala habeen khamiis ahayd oo lacagaha maxaan ku rahdaa lacagaha maxaan ku rahaa isbuuclaha waxa soo dhacaan habeenkii isbuuc soo galaya galabta khamiista ay soo dhacaan marka halkan waxa uga jeedaan waa bille iyo isbuucle tawaradana waa qayb kamid ah weeyaan lacagii soo dhacay hadda marka lacagii aan ka sharxnay waxa kamid ahaa matrix baa kamid ahaa oo ahaa lacagta billaha ahayd waxa kamid ahaa margin bonus marka kulli waa u jeednaa matrix waa maxay qofka matrix wuxuu helay 428 buu helay margin bonus muxuu helay wuxuu helay 397 retail qofkan retail ma samayn oo maartay waxa ma iibsan maxaan ku dhahdaa product diamond poolkii waa kan oo diamondkii wuxuu ka helay lacagta kan ku qoran ma sha Allah qofkan sidoo kale taariikhda fiiri agas 3 waa bisha hadda aan ku jirno 8 qofkan maxaa soo dhacay lacagta soo dhacay waa bille waxaan ku qoran maanta waa ku qoran waa bille weeyaan lacag bille ah weeyaan oo bishii waxa weeyaan bishii hore khamiistii 9 bay ku aaday khamiistii ka horeysay 9 bishii ahayd oo bishii ba dhamaan marka liifku lacagaha waxa bixisaa khamiisaha ay bixisaa marka shalay waxa soo raacay lacagii isbuuclaha ahaa iyo lacagii billaha ahaa soo raacay هذا waxa weeyaan afar sababood ayaan isla eegi doonaa oo kambaniga liifku ay tahay inaad ugu soo birto caawa kambaniga horta mar dhow ayaa siisa waxa weeye wada soo gal oo 7 bilood ayuu jiraaba 7 bilood ayuu jiraa
marka kambaniga maxaa weeye isagoo markuu soo galay maxaan ku yiraahdaa hawada ayuu haddana waxa weeyaan kambaniyada labadan ku jira oo ka mid yahay high quality and very affordable healthy products qofku awoodo inuu gato tayo ahaanna aad u sareysa waa product iyo tayo leh haddana qiimaheedu aad u jaban yahay marketing system tools and training kambaniga waxa weeye baxa kamid noqotid oo akoonkaaga maxaan ku raahdaa afurtid oo maartay page-kiisa aad gashid waxa weeyaan toolskii iyo maxaan ku raahdaa tababaradii ama tababaradu ha ahaadeen kuwa caalami ah ama kuwa anagu aan qabanno ha ahaadeen yani intuu waa ku diyaar waa ka helaysaa waa simple kambanigan oo systemkiisa aad u fudud yahay waa powerful oo kambanigan waxa weeye maasha Allah waxa weeyaan maanta waxa weeyaan kambaniyaal badan oo 10 sano 30 sano 40 sano soo jiray ayuu waxa weeyaan ka qaada waxaan ku yiraahdaa number 1 ka qaada sababtan waxa weeye waa systemkiisa oo fudud waa kambanigan sida uu kula ballamay ayuu maarta waxa weeyaan وسكن له حنين step by step واحد بس واللوكيرتيف بي بلان يعني واحد ويان واحد فضل أو اسكعب ويان وايد مركا أكا واحد نقول أري A B or C يعني بس منه كمان أكو صابيرة يو إنت عندك كود ويان أما هو A أما هو B أما هو C هدي أتري هذا I want to become an affiliate member معنا واحد ويوحى على رأي أن بدو قف سوقية أو تيم إستا أو مع سوقين سماية أو ماركت سماية ما واحد عرفت أنا عن نقطة قف I want to become a member قف كبرنا أنتو كم من نقطة صدق هذا عشان الشيء عد بقى كينين يوزر كثير بس يوزر هايستا أكون كيسنا واحد ويا أما سنة الله بحا أم بلا الله بحا ويحد كبرنا وباص يقول لي تونك على الأقل إسكا إيمان صلاة يلا مرش مثل سي بعد نقول شاء الله I want to become a retailer customer ما حرب أنا نقول قف برا تيجي متى سجن عصدا أنا نقوله أيام ربع ميل أورانسام ومكاساتنا أدو يعني قف كستا أنت مش كل نقول يوم وهو يوم ومن كل برنامج السجع إنه كلا ضغطه لكن أنت أصاب كل برنامج من ضغطين وكل برضو كلية هذا رجل عم ضغط قف سوقية ومقصود وين هذا رجل قف مستفر يستفر ما عارف وهو يوم ما تقصونه ومقصود وين ودقون كرسا هذا رجل قف برا تيجي عصدا ودقون كرسا أنت وهو يوم ولو قليه هاي marka waxa ku laabanaysa qofka markaas linka ku soo siiyay waxaan u sheegaysaa marka saddexda hadda aan soo sheegnay midka aad tahay ee la wadaagaysaa si marka maxay diiwaangelinta iyo processka uu dhaco aad baa u mahadsantihiin mar kale waqtigiina qaaliga iyo sida wanaagsan dhegeysateen maasha Allah waxaan kusoo wareejinayaa mikrofoonka daadiyaha barnaamijka injineer maxamed jaamac sahal injineer back to you aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xiisadda quruxda badan la caawa aad jeedisay doctor axmed cabdirasaaq chatku hays qabsada maasha Allah ku dhiirigeliya xaqiiqatan waxaan filayaa wax allaale iyo wuxuu ka tegey ma jirto barnaamijka live good bilow ilaa dhammaad fadlan ducada u raaciya insha Allah xiisaddan oo aad iyo aad u dhammaystiran weliba wal berber ahayd si fiican u soo diyaar garoobay maasha Allah waayahay in yaroo kale ayaan aniguna haddaba ku dari doonaa haddii ilaahay qadaro si qof kastoo cusub oo marraba barnaamijkan inuu soo galo markaa go'aan fiican uu u qaato markuu muuqaalkan daawado insha Allah haddii ilaahay qadaro waaya qof kasta waxaan rabnaa inuu barnaamijka marka hore intuusan lacagba bixin oo isdiiwaan gelin inuu yani ka faa'iidaysto oo fahmo barnaamijka waxa uu yahay waxaan raacinayaa haddii la haydmo 10 qodob oo aad ku jeclaanaysid live good حقيقة هديات حسد بالله ولا ما لسعتي أما هذا مقال كديب يوتيوب وكذا وأنا سيد بقى كبرجة وحياة وصوب بندقة وحياة هديات عجيبة وأي حيان وحدا كدري مساعدات أقوم له إني كبرجة صوت دياريان والروان السوقية أدونك عالم كإني قبصدان أو والله أما إدي أي وودك صوت قلان وأنا تكيني إذا كبرجة هدا بعد إنه كالك كوباد أما كالك لباد كتشرو أو لا challenge جراني كبريو قاركود كنتن سنة كبدن شرين هذا مركا عجيب كأح الطبان قضاء وكسود شدينا يوحكم ده دان سوق في صوبه بسيور نمبر 1 نمبر 1 حالي كمبينينج واحد كوش على نسا no buying or selling of products to make money يعني قفكا لغو خص بماي ليف قول سوقل كدنا الدوين سو إيبسو
waa buy or sell ama dawooyin sii iibi si aad lacag u samaysid cid kugu khasbaysaa ma jirto yani waa xorriyad maxaa looga socda labadan adoo midna samayn ayaad kambaniga lacag uga shaqaysan karaysa waa halkaa ku xadfan saa darteed khasab ma jiro haddaad baayin dawooyinka samaynaysidna markaa lacag kale ayaad kasii helaysaa kambaniya badan waxay kugu khasbayaan maxay inaad wax iibisid dawo soo gad sii gad baa lagu khasbayaa ama product wuxuu doona noqdee kambani kastoo marketing loo samaynayo inta badan waa khasab weeye laakiin tani waxa weeye number one qodobkaas meesha way ka saareen qodobka labaad ee isna xiisaha leh waxa weeyaan kambanigan ee aad ku jeclaanaysid waxa weeyaan kambanigan wuxuu ku yaallaa waddan horumaray oo cid kasta ay kambaniya fayga aysan samaysan karin wuxuu ku yaallaa waddanka maraykanka fitamiinno ayuu soo saaraa sida sharaxaad ku horkaysay weliba waxaa approvalka siiyo shahaada siiyey FDA qolada loo yaqaano ay maraykanka qaabilsan productyada dawooyinka waxaas qaabilsan ayaa shahaada siiyey taasna waa qodob labaad oo waxa weeye isna soo jiidasho leh weeyaan qodobka saddexaad ee kambanigan lagu soo jiidin karo waxa weeyaan you can earn up to 2000 every month yani bil kasta kambanigan waxaa ka samayn kartaa $2,000 yani xisadda waxaad ku daawatay sida doctorku sharaxay $2,047 inaad lacag ka samayn karaysa bishii saa darteed marka near $2,000 baa lagu soo bishii waad ka samayn kartaa without recruiting people to join live good qodobkaasna waa qodob soo jiidasho waa qodobka keenay dad badan oo adduunka jooga inay kambaniga kusoo yaacaan oo iyagoo aan marketingka samayn karin oo u soo gelaya kambaniga inay bishii ka qaataan $2,000 marbaad iyagoo cidba diiwaan gelin qofna diiwaan gelin qodobkaasna doctorka ku nuxnuxsaday anna waan sii caddaynaya marka ma aha markaa isqortidba ha u qaadan in $2,000 bishii ay kuu soo dhacayso laakiin waxay qaadan kartaa waqti waa inaad leedahay samir waa inaad leedahay dulqaad waa inaad bil kasta membershipka $10 waa inaad bixisaa weliba waxaan kula talinaa qofka inuu membershipka inuu sanadkii hal mar iska bixiyo oo barnaamijka uu ku soo galo $140 hal mara inuu bixiyo hadduu card visa card ama mastercard uu leeyahay haddii uusan mastercard visa card haysan USDT lagu diiwaan gelinayaan inuu $145 uu la baxo marka maxaa dhacaya sanadkaasoo dhan 2 bilood bilaasha qofka ula socota yacni wuxuuna saadaalin karayaa bilaha hore waxa laga yaabaa in lagula sugi maayo hadba wax inta qofka ku hoos taalla oo qof kastoo shirkadda ku hoos dhigto waxaad ka helaysaa $0.25 sidii sharaxaadii muuqaalka ka daawatay mar raba inaan ku dheeraado muuqaalka dib u daawan kartaa saa darteed 2,000 waa godad 12 level oo lagu baneeyey maadaama tir shaqaysan maayo oo kuu buuxsamaya laakiin waqti bay qaadan kartaa 3 bilood 6 bilood sanad 2 sano 3 sano qaadan kartaa laakiin haddii ay kuu gaadho bil walba lacagtaas waad qaadanaysaa laakiin inta hore adkaysigeeda yeelo platformka websiteka nimankan ay samaysteen lacagta diiwaangelintana bixi lacagta membershipkana bixi oo kirada websiteka iska bixi dabeedna optionkaasna waad haysataa waa qodobka saddexaad waa qodob isaguna aad u soo jiidasho leh laakiin qodobkaas qofka qaadanaya matrixka leh waa inuu qofkaas yahay qof dulqaad leh haddaad waxba sugi karin ha ka mid noqon qodobka afraad ee kambanigan soo jiidashada waxa weeyaan wuxuu leeyahay weekly earning iyo monthly earning labadaba waa kii doctorku tusay weekina lacagaa soo dhaca maalinka khamiista oo khamiis walba lacag baa laga shaqaystaa monthlygana lacag baa laga shaqaystaa oo 7 qadab ee lacagta looga sameynayay barnaamijka uu kugu sharaxay bilow la dhamaad 7daas qaar ka mid a maalinka khamiista la helaa kuwana waxaa la helaa bisha ayaa la helaa sad muuqaal ku daawanaysay saa darteed kaasna waxa weeye kambanigu labadaba waad ku helaysaa yacni bil keliya sugi maysid weekina waad helaysaa haddaad tahay qof shaqaysanaya oo marketing samaynaya qodobka shanaad ee kambanigan soo jiidashada waxa weeyaan everyone get paid those who recruit and those who doesn't yacni qof kasta kambanigan ka mid ahay ama ha noqdo qof kasta lacag buu kambanigan ka heli karaya qofkaas ha noqdo qof wax diiwaan gelinaya ama dawooyin iibinaya ama marketing ha noqdo ama ha noqdo qof aan dawooyin iibinayn marketing aan samaynin oo waa qodobkii saddexaad hadda aan ka hadlayay weeyaano oo qofka matrix sugayso gacmaha intuu iska laabto kownkiisa bil walba iska bixinaya halkaas waxa weeye ku sugaya wixii ugu soo dhaca halkii qof ay shirkadda hoos dhigtana 0.25 baa laga siinaya hadday bishan 10 qof hoos dhigto 10ka qof baad ka sugaysaa markay lacagta bixiyaan calaa qof 0.25 baa kugu soo dhacaysa waa automatic adoon cidnaba la hadlin ayuu kaa ku soo dhacaysa laakiin waa inaad samir iyo dulqaad u leedahay qodobkaas markaas saas ugu celcelinaya okay qodobada kale ee iyaguna xiisaha leh 10 qodob waa israacinayaa ee kambaniyada caalamka dadkii uga soo yaacaya halkan loogu soo jabayo waxa weeyaan waa qodobka isna animaado qodobka lixaad qodobkan waxaa aad u jecel dadka marketerska ah dadka yacni yaqaana sida wax loo suuqeeyo yaqaana bartay ee ama kambaniya kale u soo shaqayn jiray qodobkan aad bay kambaniga ugu soo yaacaan oo waa maxay qodobkaasi waa direct bonus oo ah 50% wax kastoo aad iibisid haddaad dawooyinka iibisid iyo haddaad kambaniga dad
ku soo casuntada ay soo galaanba qofkii soo galaba 50% kala bar baad leedahay oo qofku muxuu ku soo geliyay $50 buu ku soo geliyay laba u qaybi divide by 2 dheh $5 hadal la ayaa kuu soo dhacaysa $25 ayaa kuu soo dhacaysa hadal la oo $50 ayaa la isku diiwaan geliyaa marka aad Visa card ama Mastercard leedahay haysatid weeyaan haddii aadan Mastercard Visa card aysan ku shaqaynaynin USDT lagu diiwaan gelinayna service USDT la soo raacayaayo $3 ayaad soo raacinaysaa $53 ayaa soo darsanaysaa marka $5 ayaa kuu soo dhacaysa waa 50% hadday dhanka dawooyinka tahayna dawooyin aad kamid u iibsidna iyana waa tii lagu lahaa memberka lacagta laga siiyo iyo retailka marka la kala jaro lacagtaas u dhaxaysa ayaa 50% ku leedahay saa darteed lacagtaas goorma soo dhacdaa waa weekly maalinka khamiista ayay soo dhacdaa waa qodobka lixaad waa qodobka qof kastoo marketing yaqaanaay uu kambanigan u soo aadayo ugu soo qulqulayo weeyaan every day waxaad arkaysaa dadkii kambanida kale ku jooga halkan soo geli arkaysaa oo ka shaqaysanaya sababtu waa maxay kambani 50% bixiyaa dunida lagama helaba yani iib haddaad samaysid $1 iib haddaad ii samaysid $500 qaado kambani leh lama hayo saa darteed waxaana qodobka kalesna ay dadkoo dhan kusoo jiiteenoo kambaniga loogu soo qulqulayo qodobka toddobaad isaguna aynaba caadi waxa weeye indirect waxa laga wadaa kan hore wuxuu direct qof kasta adoo keentay ayuu ahaa ama dawo kasta aad iibinaysa ayuu ahaa laakiin indirect waa maxay waa qofka adigu aad keentay wixii isaga qofkaas uu keenay hadda qof kale adu maadan keenin kii aad keentaa keenay dadka tiimkaa ka farcamayahay celcelis ahaan waxaa kaa soo gelaya 30% ayaa kaga soo dhacaysa 30% ayaa kaga soo dhacaysa oo iyana maxay soo dhacaysaa wiigii kusoo khamiisa ku billiga la sugmay khamiis soo dhacaysa khamiis marka laba lacagood baa soo dhacaya waa wixii direct aad keentay iyo wixii indirect la isugu qadar labadaba maalinka khamiista ayay ku soo dhacayaan waa qodobka toddobaad isaguna waxa weeye 30% oo indirect qof aad uba ka helisid iyana company lahay dunida maanta wuu yaryahay maba jira oran karaya hadduu jiro aniga luuqaygu soo sheeg insha Allah qodobka sideedaad isaguna waxanba ka daran waxa weeyaan ka lacagta badan hadda account-ka adalkiisa markii la dhaweyto la soo bandhigayay matrixka iyo magic ayaa lacag badna isuma dhowan magic lacag badan haddii qofku yahay qof shaqaysanaya marketing samaynaya haddii aad $100 ka heshid matrix ka heshid magic-kuna $300 qiyaasood ka helisa magic oo isaguna muxuu yahay waxaad lagu siinayaa 50% ayaa lagu siinayaa oo xagee ka imanaysa first generation oo ah yani dadka adigu aad diiwaan gelisay qof kastoo adigu aad qortay oo aad diiwaan gelisay haddii matrixkiisa uu helo ka soo qaad $1,000 uu helo xisaabta maanta lagu sharaxayay kunka qofka isagoo siisa u helay adigana 50% baa kor kugu soo $500 baa ku soo dhacaysa qodobka isaguna ah qodob sideedaad oo isaguna aan meel lagu arkaayo uusan maalinkan maanta uusan jirin company lahayna aan ku arag intaan company marketing arkay aan arag saa darteed kaasan inaba caadi maaha qodobka sagaalaad waxa weeyaan isaguna dadka marketingka sameeyay ay u soo yaacayaan waxa weeyaan dad badan oo network marketing yaqaanaay company badan ay ama uga tageen ama shaqada network marketing u naceen bal u fiirso waxa weeyaan waa qodobka sagaalaad weeyaan qodobka sagaalaad muxuu leeyahay no week like yani lug baa iga yar oo week iga ah oo company qaar maxay sameeyaan waxay sameeyaan ka soo qaad laba lugood baad leedahay koornaya for example laba lugood waxa laga yaabaa in lugi aad u shaqeyso halka leader galo halka mid kala galo halka mid kala galo halka mid kala galo lugtan inay ku jirto $100,000 sales inuu ka dhaco dabadna lugaa 100,000 ba shilin laga siin maayo lugaa shilin ilaa aad lugtan kala soo ridid markaad lugtan ku soo ridid baa wax ku soo dhacaysa laga horreeya taasoo dad badan network marketing ka nacsiisay oo company badan isaga tageen aan company magacaabayn oo lagu horreeyo maxay lugtan kala dhis wixii ku waxa laga siin maayo tan waxa way wax isbitaal no week ma jirto no strong leg ma jirto no left no right waxaba lagu eegi maayo war wixii commission ee company ku hadda xisada lagu sharaxay dhan wax kasta mid walba bartiisa ku helisa bartiisa ayaad ku helisa marka ma jirto no left baa ga yar right baa ga yar iyo BPS baa tire stock list iyo forced by waxaas oo dhan company ma jiraan qodobka tobnaad ee isaguna inaba caadi waxa weeyaan membership company laga rabo platform-kan waa $10 kaliya weeyaan wax kale laga rabo company-gan waxa laga rabo $10 ama lacag shaqeyso ama shaqeysan ama cid hel ama helin $10 kaliya bishii iska bixi lagu hal company-da kale laga yaabo lacag ka weyn bil kasta laga doonayo in aad bixisid saa darteed 10ka qodobna waan kuugu darayaaye nood galayso insha Allah isada intaas ma rabo inay dhaafto muuqaalku inuu aad u si dheeraado ma rabo maadaama laga yaabo muuqaalka YouTube-ka laga daawan doono YouTube-ka laga doono saa darteed intaasaan ku soo afmeeriya insha Allah qof walba marka adoon isdiiwaan gelin muuqaalkan kaliya daawo mar 2 3 4 ku cilcisho muuqaalo kale badan aan doono YouTube-ka saalus riyaalna way jiraan ku cilcisho iyagana daawo kadibna marka go'aan qaado oo marka adoo marka habiya oo waxaan fahansan isdiiwaan gel adoon fahmin ha isdiiwaan gelin insha Allah inahaasaan ku soo koobaya muuqaalkan ballankeenu waa wax baro shaqeyso
وارمي سورة كاهرو زوم كل انتاس انه قحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته